haatana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka Haruun Macruuf ayaa inoo haya. meelo badan oo ka mid ah dunida islaamka waxaa ka socda dagaalo ahli ah iyo kuwa qadiyado kale ay ka dambeeyaan oo dhiig badanna uu ku daatay. waxaa soo baxaya mas'alooyin diini ah oo dad badan ay iska weydiinayaan xaaladda xilligan. mas'alooyinkaasi qaarkood waxaa ka jawaabaya oo maanta barnaamijka martida mikrofoonka marti ugu ah imaamka iyo caalimka sida weyn looga yaqaano Soomaaliya Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo ku sugan dalka Qatar. ugu horreynna waxaan weydiiyey waxa uu ku sababayn lahaa dhibaatada muddada 20 sano ah ka taagnayd Soomaaliya. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman katira. waan salaamaya dadka ay maqlaya oo dhan walaalahay meel kasta ay joogaanba. sideedaba jismiga insaanka ama jirkiisa marka uu qofku markuu bukoodo acraab ama calaamad baa ka soo baxaysa kala duwan. hase yeeshee acraabdaas iyo calaamadahaasi waa calaamado tusinaya in xanuun jiro. aniga marka wallahu aalam waxaan u arkaa asaas ahaan dhibku wuxuu ka yimid hal marad oo ah dacful iimaan. iimaanka ayaa daciifay. iimaankii baa dadka ka tegay ma oran karo. insha allah muslimiin mu'miniina la wada ahaa, laakiin maadaama iimaanka uu daciifay calaaqadii ilaahay laga lahaa oo daciiftay ayaa acraadan kala duwan iyo amraadan kala duwan qabaliga iyo balaayada iyo dagaalka iyo dhiigga iyo waxaan oo dhan dhacaya sabab u ah. taasan qabaa wallahu aalam. waa garta haddaan si guud ku weydiiyo maxaa looga baahan yahay aasaas u ah khilaafo islaamiya inay jirto ama jiritaankeeda? tii aan ka bilaabay oo ahayd inaan kulligeen bal marka hore rabbigan u noqono oo ilaahay xiriir wanaagsan la yeelano oo shakhsiga muslimka uu marka horeba u dareemo ama la dareensiiyo ama lagu dadaalo in ilaahay lagu xiro. haddii rabbigan subxaanahu watacaala aan ku dadaalno inaan ku xirano dadka muslimiinta walaalahan kulligeen aan ku dadaalno inaan ilaahay calaaqo wanaagsan la yeelano, marka qofkii isagoo tawcan oon cidna ikraahinin oon cidna ku qasbin oon cidna ku ciqaabin ayuu xukunka ilaahay raalli ku noqonaya oo sidii hadda ka horba dhacday zamankii nabiga caleyhi salaatu wassalaam. dadaal fara badan oo la galay kadib qofku isagoo meel khafi oo iska qarsoon iska jooga oo aan magaranaysaa cid soo qabatay iyo cid sheegtay midna jirin buu iska heli jiray. yaa rasuulallah dambigaasaan sameeha lagu qaado. oo hadduu isqariyo oo maaragtay iska istikfaaro oo ilaahay dambi dhaaf weydiisto cidna waxba uma raacateen. xataa dardaaranka nebiga sidaasay ahayd. dardaaranka nebiga sallallahu alayhi wa sallam waxay ahayd qofkii waxyaalahan waaweyn ee xuduudda ee ku dhaca ha isqariyo ho istikfaarsado oo maca dalika dadku iyagaa iskeenayay oo imanayay oo maaragtay calaaqada ilaahay ay laleeyihiin iyo aakhiro oo qulubtooda ku weyneyd ay adduunyadooda hagaajisay. marka adduunyadeena intaan aakhiraba la gaarin waxay noogu hagaagaysaa annagoo rabbigan xiriir la yeelana. marka meesha laga bilaabayo in dadku ay khilaafa alislaamiya iyo magaranaysaa diinta ilaahay oo rabbigan koonkan abuuray ee kama unu tanaasulin. mulkigiisana isagaa iskale, boqortooyadiisana isagaa iskale, isagaana u taliya subxaanahu jala jalaaluh. marka in talada ilaahay subxaana watacaala iyo awaamirtiisa la qaato waa loo baahan yahay, laakiin dariiqa loo marayo waa in bilmaxaba ilaahay dadka la jeclaysiyo, ilaahay ku xirmaan oo rabbigooda ay jeclaadaan oo iyagoo raalli ka ah ay axkaamta nabiga axkaamta ilaahay iyo nabigiisa caleyhi salaatu wasalaam ay qaataan. arrinta iyadana dee adilaha qur-aanka iyo axaadiisi iyo kuwada timid oo umana caaisha radiallahu canha waxaa ka sugnaatay inay tiri markii ugu horreysay waxaa soo degay aayadaha tarkiibka iyo jannada iyo naarta iyo ka sheekeynaya iyo tawxiidkii ma ayna soo degin axkaamta. markii ugu horreysayba haddii dadka looga bilaabi lahaa bay tiri khamri ha cabina ha zinaysanina ma ayna yeeleen oo waxay odhan lahayn wallahi inaan daynaynin khamriga oo aan zinada daynaynin. marka halkaas waxay daliil u tahay in marka hore dadka la dhiso oo la jeclaysiiyo oo rabbigood iyagoo mudeeceen u ahoo oo axkaamtiisa raalli ku ah iyagu ay markaa dalbaanba ay qaataan. saasaa anagu ayla tahay. marka wallahu aclam. waa garta guudaha islaamka markaan si guud uga hadalno mujtamaca islaamka maanta wadan matala ama jameeca matasha ma jirtaa? wallahi ma maqal anigu. haddii aad ujeedo masalan wadamada sacuudiga ama qatar ama wadamada tan hadda guud ahaan muslimiin yihiin ama dad islaam ay yihiin miyay masali karaan muslimiinta oo iyaguna mayna odhan. yani sacuudigu waa dawla khaasa, muwaadiniintiisana waa muwaadiniin khaas oo isaga
ninka dibadda ka yimid iyo ninka muwaadinka uu amaba sinaan karaan isku mid ma aha marka in ma aragtay ama Sacuudiga ama Qatar la yiraaho islaamka oo dhan ba hoos imanay iyaguna ma aynan oranin cidna kuma tilmaamin baan u maleynaya laakiin qolo waliba iskoodiyaga isku maamulo oo ma garanaysaa oo ay doonaan baa isku maamule wallahu a'lam waa garta arrinta ku saabsan fadwada iyada axkaamteeda maxay tahay fatwadu waxa weeye hadda waraysigan kooban laguma koobi karo axkaamteeda iyo shuruudeeda laakiin asaas waxa uu ah fatwa waa ficil dhacay weeyaan waa nin wax fatwooday oo ma garanaysaa nin sheekha oo mas'ala ka jawaabay weeyaan ama la weydiiyey fatwana waxay ka timaadaa min al-istiftaa in la dalbo oo la weydiiyo oo la yiraahdo mas'aladaasi maxay tahay isaguna sheekhuna uu sheego waxaa shardi u ah inuu caalim yahay oo diinta ilaahay uu garanayo oo ma garanaysaa oo weliba cilmi iyo caqli uu dhammaystiran yahay mustawa ka gaaray uu u fatwoon karo ama uu kaga warrami karo axkaamta ilaahay wax uu isagu jeebkiisa ka sheeganayana ma ahe waa wax oo uu ka bartay ama uu ka akhriyay nusuusta sharcigeena kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena calayhi asalaatu wassalaam iyo fahmigii iyo culimadeena iyo salafu saalixa raximahumullah iyo culimadeena a'immat almadaahib alarbaca wahayrihim marka uu sheego ilaa mas'aladu sidaas weeyaan marka fatwadu taa weeye waxyaalahan hadda marka qaarkiis intishaaray ama fiday la iska fatwoonayo ama dad aan ahal u ahayn ama aan cilmi u lahayn ama aan baranin ama diintii meeshii laga rabay aan gaarin ama intaasba iyadoo ay ahayn waxyaala si kale ujeeda waxaasoo dhan waa khata ama qalad ka dhaca weeye oo fi baab alfatwa marka guud ahaan dadka ay maqlay walaalay waxaan ku waanin lahaa ama u sheegi lahaa haddii ay noqoto al-istiftaa ama inaan fatwo weydiino dadka ahalka u ah ee culimada ah ee caalimiinta ah wamaca dalika diintooduna ay diin lagu kalsoon yahay oo la jecel yahay ay tahay waxaa jira caalim cilmigii bartay hase ahaatee tadayunkiisa ama diintiisu khalal ku jiro waa jiraa laakiin ninka dhammaystirtay cilmigiisii iyo camalkii saalixa ahaa kaa weeyaan kan la weydiinayo fatwada wallahu aclam waa gartay dabcan sababtaan ku weydiiyey waxa weeyaan xilligan dhibaatooyin fara badan baa meelo badan ka jira oo Soomaaliya ku jirto waxaad arkaysaa dhalinyaro ama dad dhahaya fatwa ayaa la soo saaray oo ogolaanaysa qof dhalinyaro ah inuu isqarxiyo dadku isku qarxinayana ay yihiin dad islaam qaarkood laga yaabo inay masaajid ka soo baxeen marka xilligan dad fadwoon kara oo fadwada bixin kara miyay ka jiraan Soomaaliya oo kale هذا كله من الصومالي جاهم واجوه مو وين بجوه أو أهل العلم أهل الفتوى هذا الكيبونا هذا عن شيء جاي موانئ يدون وعامة مدى اللي يراها النقطة مدى عامة الناس هالنقطة مدى وين هالنقطة وإن لون نقطة فتوى أهل كذا من عالمة ومتمكنة وعاملة وعمل فلا يدين إلهي من كاس فتوى الله لو علي حق هذا واللي لهم حارتنا دينته أي كقبتها نك أنسايين وأنا المخطئة وقالت كل عيويا لأن أنا مؤمن إلهي باير جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر أهل الاختصاص ويديها إياها هذه أيضا إذنكم قرنين الله أنا أمريتاس سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه شيء وأنا نوجد آخر الزمن إن من دونتو إن علماء لا أفصل دونه أو أي لبوا دونه ضد كذا بدل الجهال أي صباحان واحد دونه مرتا أي ضد أي مو فتوى فكذا إن كدكتور ناوي أو حضر إيو مقرنا شيء أنك جري بدي دون طبعا النقطة وإن لون نقطة علماء عاملين تاع diinta ilaahay subxaana watacaala ku dhaqmaya wallahu aclam waa gartay waxaad jirtay 2 toddobaad xilli laga joogo qarax muqdisho ka dhacay masaajid hotel ku dhex yaalay in la qarxiyay dad fara badan oo markay salaadii jimcaha ka baxeen ay ku baaba'een meeshaas maxaad ka dhiireed arrintaas oo kale oo wax badan ka dhacda Soomaaliya wallahi sheekhu horta kulliba nin waxaan u maleynayaa qof arrimaha noocaas oo kale mubarrir u sameynaya ama oranaya waa
waa gar ma jiraan baan u malaynaya wallahu aclam kulleyba qofkii doonaya inuu ama gaalo la dagaalamo ama ma garanaysa weerarooda ugu tago laakiin dad muslimiin oo masjidku tukaday anigu ma aqaano yani mubarirka keenaya in maaragtay la dilo wallahu aclam waa gad wax sax uma arko waa gad waxaa jira culimo ku kala aragti duwan dabcan Soomaaliya laftigeeda markay ka hadlayaan ciidamo ajnabi oo jooga Soomaaliya oo qaarkood ay ka yimaadeen wadamada islaamka sida Djibouti qaarkoodna aysan ka iman wadamada islaamka sida Kenya iyo Ethiopia maxaad ka dhihi lahayd arintaas wallahi anigu waxaan ka dhihi lahaa yani marnaba ma jecli raalina kama ihi in wadankeena Soomaaliya muslimka ah in dawlad ama ciidan dibadeed ay yimaadaan oo isdagaan iyagoo hubaysan raali kama ihi mana ogoli mana jecli laakiin arrinta iyada waa arrin xaam qadartana joogay qaacida ka dhisan tahay magaalada joogaan markasta adduunka jooga soomad garan ka dawladuhu iyagu u fiirinayaan waxay shalay ka qaban laakiin iyadoo diin xaggeedaba laga aadin xataa wataninimada marka la yidhaha maanaha raalli ka noqonaya si hadda ka hor dhacday in Ethiopia ay soo gasho Soomaaliya oo calankii Ethiopia laga madaxtooyada uu ka bilbisho yaa ninka Soomaaliya raalli ku noqonaysa hal isku khilaaf hadda sidii loogu hortagi lahaa arrinta oo dadku waxa ku kala aragti duwanaadeen laakiin in ciidan dibadeed ay wadan joogaan taas waxaan u malaynayaa arrin hagaagsan aniga ilama aha waxaa fiicnaan lahayd marka inaan ku dadaano dhexdeena inaan isku kalsoonaano ilaahayna subxaana watacaala kala saarano ciidankeena iyo difaaceena waxayna uuna dhexdeena u noqdo waa gar dawladdu haddii ay ku doodayso ciidankaasi ilaalo ayay noo yihiin ciidanka la'aanteed dawladdu way dumaysaa ama iskama difaaci karto dadka ay iska soo horjeedaan ka waran muranka noocaas ma arrintaas waa arrin iyaga khaas ku anigu waxaan qabaa dawladii hadday cadaalad u timaado iyo wanaag iyo daryeel iyo fiicnaan ay dadkeeda ay tusto ciidamo dibadeed inay difaacaan u baahan mayso intaasaan kusoo koobaya allahu aclam waaye marka laga hadlayo ururadan lagu tilmaamo xag jirka inay yihiin meel kastaba ha ka jiraan marka lasoo qaado waxa lasoo qaadaa oo inta badan lagu ladhaa manhajka salafiga ah bal arinta ka hadal adoo wax yar iftiiminaya manhajka salafiga waxa uu yahay iyo xiriirka ka dhaxeeya manhajka salafiga iyo ururadan xag jirka arrinta iyada kulli ma aha sida loo oranayo ma aha ama salafi hal yira ama usuuli hal yira ama diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankeena iyo sunnada nabiga alayhi salatu wassalaam dadka inaga soo gaadhay salaf saalix ahaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad raxmad iyo naxariis iyo magaranaysa iyo salaam iyo nabadgelyo adduunka ku faafiyay bay ahaayeen caam ahaan islaam ahaan muslim hadda soo in fara badan oo dadka la jooga iyo dadka wadamadaas maaragtay aad joogtaan iyo soo islaamku dhan kuma tilmaamaan inuu yahay magaranaysa irhaad iyo waxana ay hadda ay ku tilmaamaan iyo marka sidaas oo kale ayaan waxaan qabaa in aynan علاقة يا شقاء إسكول هاي وفق سيدي أقلدن وحضور وشيغن كرا لكن كمذهب السلف الصالح دات وانا كسن عاين دات خير قوية ربع عاين إن كستوى مركي هذا التفاصيل إيو قوس حسي عن لوسي دقو أي تاي وبان تاي شرح انت نكبح كدير لكن أنا أمقبو إني علاقة أي كده حيثو وحيالها هذا دوكا كدعية iyo waxyaalihii ka manhaj salaf ahaan yani u qornaa iskumid calaaqada islaamka qaba wallahu a'lam manhajka salafiga marka laga hadlayo culimadu waxay soo qaadaan aqeedada al-wala wal-bara marka la macneeyo in wixii islaamka ku saabsan oo dhan la soo dhaweysto wixii islaam ku saabsanayna laga fogaado la iska bari yeelo xilligan aan joogno iyo casrigan aan joogno bal say isku waafaqayaan wax yar iyada noo sharax horta tan aad sheegtay oo ah in manhaj salaf uu leeyahay waxaan la yiraahdaa al-wala wal-bara ma sax ma aha su'aashaasi ama iqtiraaxaas ama saad u dhigtay ma aha al-wala wal-bara manhaj salaf
كسلف أهان كمنهج أهان كلية مقام الإسلام كودن باقبة وأرن أو ثابت في كتاب الله عز وجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام كسوغن وي وأرن تكنتي مكي النبي عليه الصلاة والسلام دعوة بالله إن كلا تغان أبي wiilkiisa ay kala tagaan oo laga yaabo xataa inay iska soo horjeedsadaan ama dagaal isku qaadaan waa arinta iyada weeye marka horeba ay qowmkii uu nabigu ka dhashay dhaleeceeyeen ay dhahan ninkan wuxuu noola yimid diin kala tafriqinaysa oo kala furfuraysa oo kala geynaysa abihi iyo hooyadiisa abihi iyo maaragtay wiilkii iyo hooyadii wiilkii iyo abihi nin iyo naag isqaba marka alwala walbara waa arin sugan oo diinteena kamida weeyaan taas iyadu qola gaar u qabtaa male islaamka oo dhan baa qaba kitaabka ilaahay baa qaba subxaanahu watacaala sunnada nebiga ku sugan tahay sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa soo haray see loola tacaamulayaa hadalka aad tiri oo ah waxa islaamkan lasoo dhaweeyey waxaan islaam ahayna la fogeeyey sidaa hadalku ma aha waxa weeyaan adiga iyo qofkan laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah yidhi calaaqa khaasa idinka dhexaysa biri iyo wanaag gaar ahaaneed baa idinka dhexeeya oo wilaayat almu'miniin baa dhexdiina idinka dhexaysa xiriirinta islaamka kan kale ee aan kelimada ku qowlin ama daa'irat alislaam aan ku jirin sida aad ula dhaqmaysana ilahay baa ku jideeyey oo ilahay wuxuu subxaanahu watacaala ku jideeyey dadka aan muslimka ahayn ama ku dhex nooshihiin ama aad dhex joogtaan ama aad calaaqa leedihiin haddayna dad mucaadiin idin ahayn oo dagaal idinkula jirin oo guryihin idinka saarin oon dhibaato idin keenin biri iyo wanaag iyo qist iyo cadaalad iyo naxariis ku dhex noolaada taasaa ilahayna amray laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu almuqsitiin hadda markaan ka hadalno masalan dadkan qurbaha yimid ee meelaha hadda kasoo hadlayso kale aad jooga ama yurub ama maraykan ama canada ma waxaan oranayaa meesha aad joogtaan iyo wadamada aad tagteen iyo dadka idin soo dhaweeyey ee guryaha idin dejiyey ee baasaboorada idin siiyey ee wax kaste oo noloshan mutaaxa idinka dhigay oo furaskaa idin siiya tacliinta idin siiyey iyagu ujeedaday doonaanba ha ka yeeshaane mucaadaa ula imaado oo la dagaalamo oo ama dilo oo ama qarxiyo ama kaneebi saasaan ku oran maayo aniga ma aha islaamka ayaan qabin islaamku wuxuu qabaa dadkaas in aad wanaag kula dhaqanto bilcaks wanaag iyo ixtiraam iyo markaad u muujiso in ay sababba u noqoto inaad diintii ilaahay usoo jiido oo aad jeclaysiiso waana tan dhacday weye in badan ay kuba islaameen oo ay diinta ay ku galeen markay arkeen akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka uu ku dhaqmay marka alwalaa walbaraa sideeday u jirtaa sax adoo meeshaa jooga maraykankaa jooga ama canada ama gurub meeshaa doonta ba joogbe waa inaad ka duwanaataa kan kale ee aan muslimka ahayn oo aad dhaqankaagu ka duwanaadaa oo aadan sidiisa u dhaqmin oo aadan sidiisa aadan magaranaysa waxyaalaha oo mukhaalafaadka oo ilaahay subxaana watacaala diiday aadan u dhexgelin oo aad garataa in adigu aad muqayad tahay oo aad ka xiran tahay waxyaalo badan oo isagu u furan taasi waa ka duwanaanshahaad ka duwan tahay laakiin dhaqanka aad la dhaqmaysa iyo sida ilaahay ku faray subxaanahu watacaala waa inay wanaag iyo biri iyo fiicnaan ay ka arkaan si ay sabab ugu noqoto inay diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu soo jeedsadaan sidaasaan qabaa wallahu aclam waxaad bal iyada wax yar noo sharaxdaa dadka sidaa sheegtay markuu iimaanku ka daciifo ama diintooda ay si fiican u raaci waayaan waxyaabaha ama habdhaqanka ka yimaada ee waddan lagu arko ama ummad kasoo dhexbaxa maxaa kamida sidee bayse ku suulin karaan waxyaabaha ficladaa xun waa arrin wanaagsan su-aashaasi su-aal wanaagsan weeyaan waxyaalaha ka dhalan kara dacful iimaan iyo calaaqada ilaahay lala leeyahay subxaanahu watacaala oo daciifta ama aakhiro rumaynta la rumaysan yahay oo qofka ka daciifta dee waxaa ka imanaysa inuu awaamirta ilaahay qofkii uu khilaafo tusaale ahaan inay salaadii yani galab ka noqoto oo salaadii uudan ku toosnaanin waxyaalaha ilaahay uu ka reebay xumaatada ahee haddana nafta la jeclaysiiyey inuu qofka iska dhex galo oo waasic ka reeba oo magaranaysaa uu waayo ama wax ka reeba yani oo uu waayo taqwa ka celisa waxyaalahaas oo fara badan oo weliba markii ay mujtamaca ay kusii faafaan si degdega dadka ugu dhex faafa ayaa ka dhalan kara waxaana lagu zuulin karaa oo arrintaas lagaga hortegi karaa wixii uu ilaahay noo jideeyey iyo dariiqa nabigeenu la yimid calayhi salaatu wassalaam waana addacwa ila allah addacwa ila allah baa nabigu la yimid calayhi salaatu wassalaam iyada ayuu nebiyadii oo dhan ay wada ahaayeen sidaan la socono nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalama maka
markii ugu horeysay dhowr iyo 10 sano ee hore 13 sano 13 sano sidii lagu qiyaasay asnaamtu iyadoo xaramka maka kacbada ilaahay ku hareeraysan ayuu dacwadiisa dhinaciisa u ka watay isaguna diinta ilaahay u faaday inta ma uunan hal sana ma uusan jebin waxbana ma uu farna u qaadan maxaa yeelay waxay ahayd taasiis dadka ayaa la dhisay marxalad taasiis dhisid bay ahayd iimaankooda inuu kobco ilaahay ay ku xalmaan calaaqada ilaahay leeyihiin ay weynaato dabadeedna waxaan iyaga iska bazuuli doonaba ka bacdi markii ilaahay subxaana watacaala uu quwiyey islaamka iyo xoogeysteen oo maka la furay waa jabiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam islaamtii oo dhan waa jabiyey